السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. maanta waxaynu ku soo qaadanaynaa qisadeena ama filimkeena. waxaan ku soo qaadanaynaa macallin iyo dugsi oo diinta barayo. waxaynu ku bilaabanaysaa sidatan: bismillaahi arrahmaani arrahiim, la-in shakartum laaziidannakum, sadaqa allahu alcadiim. haddii aad ilaahay ku shukrisiin waa uu idiin zaa'idinayaa nimcadiisa. waxaa soo gaaray laba arday oo soo daaday madrasadii oo la kala oran jiray Axmed iyo Xaamid. macallinkiina waxa uu yiraahday istaag Axmed iyo Xaamid. markasta waa soo dib dhacdeen ardayda gadaasheed ayaa imaateen. Axmed ayaa bilaabay: macallin, aniga waxaan ku soo daayay howlo. Xaamidna waxaan warsaday inuu caawiyo, wuuna ii diiday. anigana hadda ka hor ayaan caawiyay, inuu ii gudana waa uu diiday. macallinkii ayaa yiraahday: Xaamidow, maxaad u caawin weysay Axmed? xaamidna waxa uu ku jawaabay: macallin, waa mashquulsanaa howlo kale ayaan hayay, imana suuragelin in aan caawiyo. macallinkiina waxa uu yiraahday: sooma ogid, qofkii wanaag kuu sameeya wanaag ayaa lagu abaalgudaa. haddii abaalkaas la waayana waxaa la weyn doonaa qof kheyr u sameeyo. si aan loo waayin qof kale asxaan u sameeyo, waa in aad u asxaan fartaa, u wanaag samaysaa qofkii wanaag kuu sameeyey. haddana fadhiista, waxaynu ka qisoon doonaa qiso taas oo nabiga calayhi salaatu wasalaam inuuga qiseeyey ama asxaabtiisa uga sheekeeyey sala allahu calayhi wasalam. qisadaas oo nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu baqrayo in nimcadii ilaahay ku siiyey lagu shukriyo, aan lagu kufrin, laguna abaal ka dhicin. nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu yiraahday: waxaa jiray 3 nin oo reer bani israa'iil ah. 3daas nin, midka koowaad waxaa ilaahay ku ibtileeyey oo qabay baras wejigiisa iyo jirka oo dhan. midka labaadna waxa uu ahaa mid aan wax timo ah lahayn jirkiisa oo dhan. kan saddexaadna waxa uu ahaa mid indhool ah. mid kasta oo 3dooda ka mid ah waxay haysatay murugo u qaas ah, taas oo aad iyo aad ugu la murugoonaya dhibaatada hayso, kana saartay dadka dhexdooda oo waxa ay ahaayeen dadka kuwa iska soo dheereeyay. mid kastana waxa uu tamanin jiray mar in uu dhibaatadan ka baxo, ilaahayna ugu bedelo wanaag. mid kasta oo mid ka mid ah, ilaahay ayaa og dantii oo ka lahaa 3dooda. waxa uu isugu daray xanuun iyo faqri iyo go'doomin ay dadka ka baxsan yihiin. 3dooda ayaga oo xaaladaas isaga jiro ayaa ilaahay waxa uu soo diray faraj. waxa uu soo diray malag 3doodaba caafiyo. malagiina waxa uu ka bilaabay kii koowaad, kaas oo ahaa kii baraska qabay. waa uu salaamay. kiina waxa uu bilaabay calaacal: maxay ka soo doontay? aniga ayaa sidaan u dhibkaana qabo. wuxuu yiraahday: maa salaanti ka qaadid? wuu ka qaaday. kadibna waxa uu yiraahday: aniyahow, maxaa ku haysto oo la murugoonaysaa? wuxuu yiraahday: waa ujeedaa, baraskan ayaan qabaa, faqri ayaan ahay, dadkana waan ka soo dhex baxay. ninkii malagii loo soo dirayna wuxuu yiraahday: maxaad jeclaan lahayd? waxa uu ku jawaabay: waxaan jeclaan lahaa inuu ilaahay cudurkan iga caafiyo, xoolana i siiyo. malagii ayaa u duceeyey, ilaahay ayuu u baryay inuu ilaahay baraska ka caawiyo. kii waxa uu ka biskooday baraskii, aad iyo aad ayuu u farxay, waa uuna rumaysan waayey. kadibna wuxuu yiraahday: xoola maxaad ugu jeceshahay in aad heshid? ninkii baraska qabayna waxa uu yiraahday: waxaan jeclaan lahaa geel inaan helo. kadibna hal ayuu siiyey, taas oo ahayd mid riman ayuu siiyey. hashaan hoo, midaan way ku farxami doontaa, waxaan uga bixi doontaa faqriga. ninkii oo faraxsan halna hayso ayaa malagii ka tegay. waxa uuna aaday kii kale ee timaha ka maqnayn ee labaad ayuu u tegay. asaga oo murugaysan oo fakarayo ayuu salaamay. kii salaantii ayuu ka qaaday. wuxuu yiraahday: maxaa kugu dhacay oo sidaan oo dhan aad ugu murugoonaysaa? waxa uu yiraahday: waa ujeedaa inuu dhibka ii hayso, in aan dadkii ka soo dhex baxay ay igu naceen tim la-aantan, xoolana aan haysan een aan ahay faqri. maxaan u fakari waayey? dhibaatada ii hayso qof ay hayso miyaa dunida ku nool? malagii ayaa waxa uu yiraahday: maxaad jeclaan lahayd inuu ilaahay ku siiyo? kii waxa uu yiraahday: ilaahay waxaan ka jeclaan lahaa inuu i siiyo timo, ii soo baxaan timo dhaadheer oo qurxoon, inaan bulshada ku dhex galo. wuxuu yiraahday malagii ayaa yiraahday: waxaan kuu baryayaa ilaahay inuu ilaahay ku siiyo timo dhaadheer. ninkiina ilaahay waxa ugu deeqay timo uusan filayn. kadibna
malagii ayaa waxa uu ku yidhaahday maxaa kaloo jeclaan lahayd adduunyada inaad heshid. ninkii ayaa waxa uu yidhaahday aad iyo aad ayaan ugu farxay maadaama oo ilaahay timo ii siiyey, waxaana kaloo jeclaan lahaa inuu ilaahay igu deeqo lo'-daas oo ilaahay ii badiyo. malagkii ayaa waxa uu ku wareejinayaa saacaas oo rimanaa. wuxuu yidhaahday socaan hoo, ilaahayna waxaan kaaga baryayaa in uu ilaahay kuu barakeeyo, faqrigii ku haysayna kaaga saaro. wuxuu aadayaa malagigii saddexaad oo meel iska fadhiyo. waa uu salaamayaa, asagana waxa uu ka qaadayaa salaantii. malagii ayaa weydiinaya warniyahow maxaa la murugaysan tahay, waa maxay dhibka ku haysto? kii indhoolkaan wuxuu ku jawaabayaa waa ujeedaa anigoo indhool ayaan ahay, waxna ma arki karo, dadkana ma arki karo, waa midaas murugada ii haysato. wuxuu yidhaahday maxaad jeclaan lahayd inuu ilaahay ku siiyo? kii indhoolka wuxuu yidhaahday waxaan jeclaan lahaa inuu ilaahay araggayga ii soo celiyo si aan dadka u dhexgalo bulshada. malagii waxa uu baryayaa ilaahay, waxauna leeyahay araggaaga waa kuu soo noqon doonaa insha allah. ninkii indhoolka ahaa hal mar ayaa ilaahay indhaha u kala furayaa, waxa uuna arkayaa waxyaabaha dhinacyadiisa ah. wuxuuna gacmaha kor u taagayaa asaga oo ilaahay u shukrinayo. ilaahayo waad ku mahadsan tahay, indha ayaad i siisay, cimrigayga inta ka dhiman haddii aan kuu sujuudsanaado ma gudi karo abaalkii. malagii ayaa yidhaahday maxaad kaloo jeclaan lahayd? wuxuu yidhaahday hadduu ilaahay indha i siiyey alxamdulilaah, laakiin waxaan jeclaan lahaa ari inaan helo. ninkiina waxa uu siinayaa ri taas oo riman. wuxuu yidhaahday midaan ilaahay ha kuu barakeeyo, faqrigii ku haysayna ha kaaga saaro. waa uuna ka tegayaa saddexdoodii oo wada caafimaad qabo, xoolana haysto. ninkii baraska qabay ilaahay waxa uu siiyey geel aad iyo aad u fara badan. waxa uuna noqday nin ganacsada ah, laakiin waxa uu ahaa mid baqiil ah, dadkana wax ma uusan siin jirin. bedelkiisii kii kale ee qabay bidaarta ama timo lahaanta ahaa, isagana ilaahay waxa uu ugu deeqay lo aad iyo aad u tiro badan. sidoo kale waxa uu noqday ninka disla ah ama ganacsada ah, kan ganacsada xoolaha. sidoo kale isagana wuxuu ahaa saaxiibkiisa oo kale oo masaakiinta iyo dadka danyarka ah uma uusan roonayn. kii indhoolka ahaana ilaahay waxa uu siiyey ari tiro badan, aad iyo aad u fara badan. waxa uuna ahaa dadka masaakiinta u imaado nin wax siiyo, gacantiisa ay furan tahay, dadkuna ay jecel yihiin. markii in muddo ah ay kasoo wareegtay sanooyin ayaa ilaahay waxa u soo diray mar labaad malagii. waxa uuna ka bilaabay kii baraska qabay, ilaahayna ugu deeqay geela badnaa. malagii oo iska soo dhigay sidiisa oo kale qof xanuunsan oo baras qabo, wuxuu yidhaahday anigu niyaho musaafir ayaan ahay, xoolana ma haysto, cudurkan baraskana waa qabaa, dadkuna waa iigu naceen, ee waxaan kugu imaaday in aad rati ii siisid, ratigaas aan u kaalmayso jidka in aan ku maro. kii taajirka ahaa ee xanuunka qabi jirayna waxa uu yidhaahday niyahow aniga kuuma hayo xoolo aad dayacdid, ma waxaad maqashay ninkan xoolihiisa waa uu ku dheelaa. kii malagii ayaa mar kale waxa uu yidhaahday niyahow soo aniga sideedoo kale ma aad ahaan jirin mid baras qabo, xoolana ah haysto. wuxuu yidhaahday hay caayin hana ii gefin, anigu waxaan ahay nin taajir ah, xoolahana abka ab ayaan iska dhaxalnay, aabbahay awogay ayuu ka dhaxlay, awogiis ayuu ka dhaxlay, weligayna cudur iguma dhicin. malagii ayaa ku yidhaahday hagaag, haddii ay beentaa tahay sidaadii hore allaha kugu soo celsho. wuuna isaga tegay. malagii waxa uuna aaday kii kale oo ilaahay timaha ugu deeqay, asaga oo suuraddiisii hore camal ugu tegay qof bilaa timo ah, xoolana lahayn. sidii kale waxa uu yidhaahday anigu waxaan ahay musaafur, waxa aan u socdaa safar dheer, jidkiina wax aan ku maro ayaan waayey, dadkuna waxay u naceen sidaan aan u aallo. adiga ayaan kugu soo leexday in aad ii gargaarto, yacni aad ii caawiso, aad i siisid sac ama dibi aan jidka ku sii maro. ninkii timo la-aanta ahaa ee ilaahay timaha ugu deeqay waxa uu yidhaahday maxaad iga soo doontay, maad magaaladaada dhinac ka geshid, anigu
xoolo lagu dheelo ma hayo, mise waxaad maqashay ninkaas waa xoolo ku dheel oo xoolihiisa waa uu kala lumiyaa. ninkii ama malagii ayaa waxa uu yidhaahday maye ee waxaa rabaa in aad i caawisid ee hal xab igu caawisid. wuxuu yidhaahday kuma hayo waxba ee idhaaf. malagiina waxa uu yidhaahday waxaa soo anigoo kale ma aad ahaan jirin mid faqiir ah timana aan lahayn. kii ilaahay tima ugu deeqay ayaa boodiyey. waxa uu yidhaahday waad noo gafaysaa, anugu weligayba sidaadoo kale ilaahay igama dhigin, faqrina igama dhigin. xoolahan waa xoolo aan iska soo dhaxalnay abka ab. aabbahay waxa uu ka dhaxlay aabbihiis, awowgayna wuxuu kasii dhaxlay aabbihiis kale. sidaas ayaa ilaahay xoolahan nagu siiyey. waan ii gafaysaa ee albaabka iga bax. malagii ayaa yidhaahday runtaa hadday tahay ilaahay ha ku barakay xoolahaaga, laakiin haddii ay beentaa tahay sideedoo kale ahaan jirtay sidaadii hore allah kugu soo celiyo. waa uuna isaga tegay. waxa uuna aaday kii saddexaad ee indhoolka ahaa ee ilaahay ariga ugu deeqay, asaga oo isaga dhigay sidiisii hore mid indhool ah. kii indhoolka markuu arkay ninkan indhahala waa uu istaagay, waa uuna dhoweeyey. waxa uu yidhaahday soo dhowow walaalkayga indhala-aanta ahow. kiina wuxuu yidhaahday waan dhowahay. waxa uu soo kacay, waxa uuna fadhiisiyey gurigiisii. waxa uu yidhaahday ilaahay ha kuu gargaaro, mar ayaan sidaadoo kale ahaan jiray mid aan waxba indho aan lahayn, ilaahayna waxa uu igu deeqay indho. ninkii ayaa yidhaahday niyahow aniga waxaan ahay musaafur, waxaan u socdaa safar dheer, waxaana rabay in ay i siisid hal neef kaas aan safarka u kaalmaysto. kii ilaahay indha ugu deeqayna waxa uu yidhaahday xoolahan ilaahay ayaa i siiyey, anigu waxaan ahaan jiray nin faqri ah, wax xoolo ah ma lahaan jirin, indhana ma lahayn. ilaahay ayaa indhahayga ii soo celiyey, arigaana igu deeqay. arigaana waa nimco ilaahay, mana ku nusqaamaya sadaqa laga bixiyey, ee wax alla waxa aad jeceshahay ka qaado. ninkiina waxa uu yidhaahday maya nin xoolahaga ma rabo, hal neef ayaan rabaa. wuxuu yidhi hal neef waxba kuu tari mayse, ee ari badan ayaan ku siinayaa ilaa iyo reerkaagii aad la sii tagtid. ninkii malagii ayaa yidhaahday niyow waad ku mahadsan tahay, anigu waxaan ahay malag, ilaahay ayaana ii kaa soo diray in aan ku imtixaamo, in ay ilaahay nimcadiisi ku shikrisay iina ku kufrisay. saaxiibadaana waan soo maray, laakiin ayaga ilaahay uma aysan abaalgudin. ilaahayna waa u kala noqday xoolihii iyo maalkii iyo caafimaadkii ilaahay siiyey. adiguna caafimaadkaaga iyo xoolahaaga allaha kuu barakeeyo, waadna ku liibaantay maadaama ay ilaahay aad ku shukrisay. labadii baraska iyo timo-la-aantii ayaa waxay ku kulmeen meelihii ay u kulmi jireen waagii ay faqri ahaayeen. mid kaste asaga oo kan kale ku oynayo, dhahayo dhib ayaan lugaha la galay, ilaahay nimcadiisii kuma shukrin, xoolihii dhanna way israaceen, waxba kama soo harin. kii kalena uu leeyahay sidaadoo kale aan ahay, geelii waxba kama harin, guryihii, waadiyaashii, beerihii way isdaba kaceen, banaankan ayaan ka taaganahay. kii timo-la-aantaana wuxuu yidhaahday ilaahay haddaan ku shukrin lahayn oon u mahad celin lahayn, masaakiintana u roonaan lahayn, dhibkaan nama uu qabsan lahayn. alle shallaytadeydiyay yaa shalay maanta u soo celiyo si aan ugu wantooba maanta dhibaatada aan ku jiro. qisadan oo nebiga inooga shekeeyey waxaynu ka fahmaynaa in nimcada ilaahay ku siiyey aad ugu mahad celisid, ugu shukrisid. ka waran adiga oo qof ah, haddii arday kale aad wanaag iyo asxaan u samaysid uusan kugu abaalgudin wanaagii, maxaad dareemaysaa? asxaan dambe ma u samaynaysaa? waaye waa maya, oo aad ka xanaaqaysaa. ka waran allihii ina oomay, naftaanna geliyey, naga dhigay islaam, xoole iyo maalna siiyey, nimcadaas oo ilaahayna siiyey, haddii aan ugu mahad celin weyno maxaana la kulmaynaa? oo sababta ilaahay wuxuu yidhaahday haddii aad nimcadiisa ku shukrisiin waa idiin saa'idinayaa, haddii aad ku kufrisiinna ilaahay cadaabtiisa way daran tahay, way kulushahay. ilaahay qur-aankiisana ayuu sidaas inoogu sheegayaa. ee ardayay mar walba ilaahay nimcadiisa aan ugu shukrino.
وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد